kulankan oo ay si wada jir ugu qabteen magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale iyo Caaqil Axmed Hoolif ayaa markii ugu horeysay beeniyay warar beer abuura kuwaas oo social media maalmihii ugu dambeysay si xoogan loo isticmaalayay isla markaasina oranaya in caaqilka iyo garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale oo u dhaxeeyo khilaaf siyaasadeed waxaan halkan shir sida ku qabanay anigii chief caalimkii guud ee beesha jaamac siyaad Axmed Cabdigaas Cawke in beeshu ay mid tahay marka koowaad jaamac siyaad maadaama caalimkii ugu weynaaye garaadkii aan ku fadhino cuqaashii kalena ay joogto midda kale waxaan halkan ka hadlaynaa warar bulshada la isla dhexmarayay oo propaganda ah oo hadallo inta la googooyay la yiri caaqilka sameeyay iyo garaadkii caaqilku weesayaan waad aragtaan maanta annagu isma hayno laba inoo ilmaadeen baan nahay caaqilkii ugu weynaa reerkii wayna garaadkii baan nahay shirka iyagu maanta intaas ku saabsan yahay dadka waxaan u sheegaynaa wararka been abuurka ah ee bulshada la iskaga horkeenayo ee aan jirin ama mas'uuliyiin inta warar laga duubo aan been ah oo la isu geegeynayo war ilaahay intaad ka baqdaan rabadaan baa lagu jiraa joojiya wararka been abuurka ah iyo dadka aad iska horkeenaysaan annagu isma hayno hadeer boogaada ishii bugtay ku bikaacso caaqilku waa kan wixii danta guud ee dhulbahanta ay dani ugu jirto ninna laga bari maayo xaaladahan jirana waa ka tashanaya garaadaduna way isu imaanayaan taladuna meel bay ku ururaysaa wax laga tashaday bay noqonaysaa ishaynaanu annagu ishayno oo maanta iska horjeednaa ma jirto waxaase dhacday in la yidhi oo xagga kor lagaga timi mid dibad jira iyo mid gudaha ku jira iyo mid hadda dhulka joogaba garaadkii cawaysayaan maxay ahayd Axmed Cabdi isma hayno waxaan anigu leeyahay kaygii codkaygii kii odaynimo kii wadaninimo kii daneed baan ku hadlay haddana waan ku hadlayaa kamana leexanayo garaadkuna kaasuu igula socdaa waxa weeye wixii aayaha iyaga ah wixii dalka iyaga ah wixii danta iyada ah oo mudaysannahay xamse raadeeye wararka TV-ga caalamka Universal Laascanood.